الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan kusoo dhex jirnay suuratu Zukhruf. waxaan soo gaarnay aayadda 48. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, wamaa nuriihi ma aanaan tusinin nimankaa gaalada ah ee reer bani israa'iil min aayatin aayad iyo mucjizad ilaa haddii aan tusinay hiya mucjizadaasi akbaru mid ka weyni badan ayay ahayd min ukhtihaa midii ayada la midka ahayd ee walaasheed ahayd ee la nadiirta la ahayd. wa akhadnaahum waxaana ku qabanay bilcadaabi cadaab ayaan ku qabanay ayaan fa arsalnaa calayhim altuufaana waljaraada waalqummala waadafaadica waddama aayaatin mufasalaat ilaa aakhiriha laga gaaro wey. lacallahum waxay mudan yihiin nimankaas reer bani israa'iil yarjicuuna inay laabtaan ay xaqa u laabtaane. marka ilaa hiya akbaru min ukhtihaa midii ayada nadiirka ahayd ee nadiirkeeda ahayd baa laga wadaa ee lamidka ahayd. wa qaaluu waxay dhaheen yaa ayuha saaxiru midkan saaxirka ahow muusey ka wadaan, ceebna kama ahayn saaxir in qof lagu magacaabo agtooda xilligoodii. wa qaaluu waxay dhaheen yaa ayuha saaxiru midkan saaxirka ahow udcu bari lanaa annaga rabbaka rabbiga bimaa shay sababtii noogu bari cahidda uu ballamay cindaka agtaada uu kula ballamay oo inuu ducada kaa aqbali ah. maxaa yeelay innanaa annagu lamuhtaduuna kuwa hanuunayo oo hanuunsamaya ayaa nahay. falamaa goortii kashafnaa aan ka faydnay canhum xaggooda alcadaaba cadaabkii iyo dhibaatadii haysatay, rihii cuntada kaga daadanayay, dhiiggii iyo wixii ilaahay qur-aanka kusoo sheegay aynu aayaddii soo akrinay, idaa isla markaaba hum waaba ayagoo yankuthuuna burinaya ballankii. wanaadaa wuu dhawaaqay fircoon fii qowmihi reetolkii dhexdooda ayuu ka dhawaaqay, waa qibdiyiintii. qaala wuxuuna yidhi, yaa qowmi reetolkayow, alaysa miyuuna ii ahaanin lii aniga mulku misra waddanka masar ama magaalada masar milkigeediiyo boqortooyadeedu miyayna ii sugnaanin? marka masar waddankii laga dhigo. wahaadihi iyo webiyaashan alanhaaru wahaadihi iyo kuwan alanhaaru ee webiyaasha ah wahaadihi iyo kuwan alanhaaru ee webiyaasha ah. hal webi oo niil la yidhaahda ayaa mara. webiyaasha wuxuu ka wadaa kalayadii laga jeexay buu ka wadaa. tajri xaal ay qulqulayso ay soconayso min taxtii aniga hoostayda, boqortooyadiisuna ka wadaa hoostiisa nin dheer muna ahayn oo webiyaashu hoos maraan ee wuxuu ka wadaa min taxtii boqortooyadayda ayay hoos marayaan. afalaa tubsiruuna war miyaydan wax arkaynin oo anigu waxa aan ku suganahay boqortooye ah iyo miskiinkan nebiyullaahi muuse ah ee nebinimadka sheeganaya faqiirnimada uu ku sugan yahay. am mise ana aniga miyaa khayrun ka khayr badan min haadaa midkan xaggiisa alladii kaasoo huwa isagu mahiinun mid liita ah oo walaa yakaadu aan sigaynin yubiinu inuu caddaynayo hadalkiisiyo kalaamkiisa. uu carab la-aayo waa kii dhuxushu ay ka gubtay carabka. falowlaa maa ulqiya la rida calayhi korkiisa aswiratun jijimooyin oo min dahabin dahab xaggii ka ahaaday, aw amase jaa-a ma yimaadaan macahu isaga la jirankiisa almalaa'ikatu malaa'igtii muqtariniina xaale ay yihiin kuwo israacraacsan oo isku xiriirsan. oo malaa'igtaasi may caddaysa inuu nebi yahay, ama maynu aragna isagoo dahab xidhan oo jinjibo loo geliyey. xilligoona caadadu waxay ahayd markii qofka boqor laga dhigayo dahab baa loo xidhi jiray, meel walba loo luli jiray. dahabkii maan ku aragno ama malaa'ig la socotoon caddaynaysa inuu nebi ilaahay soo diray yahay may mar walba noo timaado oo kuwani markay yimaadaan kuwii kale yimaadaan. saasuu leeyahay. fastakhafa wuxuu fududaystay qowmahu reetolkii oo fa adaacuuhu way yeeleen oo caqligu ka xaday. maxaa yeelay innahum ayagu kaanuu waxay ahaayeen qoomkaasoo faasiqiina daacada rabbi ka baxay. kamaa tadiinu tudaawey
falamaa goortii aasafuuna ay naga cadhaysiiyeen intaqamna waan ka aargudanay minhum ayaga xaggooda oo fa aqraqnaahum waan maashaynay oo biyaan ku halaagnay ajmaciina dhammaantood oo fa jacalnaahum waxaan ka yeelnay salafan kuwa horseed ah oo ceelalyo ah wa mathalan iyo tusaale lil aakhiriina kuwii dambeeyey ee ambiyadii loo soo diray beeriyey walamaa goortii duriba loo yeelay ibnu maryama wiilkeedii mathalan tusaalo idaa isla markaaba qowmuka reertolkaa nebi maxamedow minhu mathalkaa iyo tusaalaha xaggiisa yasiduuna wayba buuqayaan oo way ku qoslayaan. arrintaasina waxay ahayd nabigeena calayhi salaatu wasalaam markay kusoo degatay inakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabu jahannam. inakum wamaa tacbuduuna baa layidhi idinka iyo waxaad caabudaanba jahannamo ayaad xaaba u tihiin. ayaa waxay dhaheen nebi maxamed waa kuu ina dhihi jiray ciise waan jecelahay anaana ugu owleysan, haddana wuxuu leeyahay idinkiyo waxaad caabudeen ba cadaabkaa la idin gelin. ciisena waa la caabuday, marka waxay ka dhigan tahay ciise waa la cadaabi doonaa. shalay wuxuu inoo sheeganayay ee inuu walaalkii yahay oo nebi ilaahay yahay soo been maaha. markaasay qosleen. riwaayad kale waxay leedahay maya aayaddii markay kusoo degatay ina mathala ciisa cinda allahi ka mathali aadama ayaa waxay dhaheen wuxuu ciise ugu celcelinayo wuxuu rabaa sidii ciise loo caabuday isagana in loo caabudo. marka sababu nusuulka aayaddu waa taasay leeyihiin, qolana taa horay ka dhigayaan. labadaba isku daro waxa ay mathalka ka dhigayaan mathal maaha baa layidhi. wa qaaluu waxayna dhaheen aalihatunaa ilaahyadana miyaa khayrun khayr badan am mise huwa ciise miyaa khayr badan. maa darabuuhu ma ayna u yeelin mathalkaas laka adiga nebi maxamedow ilaa jadalan dood mooyaane. maxaa yeelay inakum wamaa tacbuduuna maadaasi waxaa loo adeegsadaa waxaan caqliga lahayn. dhagaxyaashay caabudayeen baa laga wadaa, lagama wado ciise lianna maal looma adeegsado wax caqli leh, wax maalaya caqilaa loo adeegsadaa. ayaguna carabiga way yaqaanaan, marka waxoodu waa iska dooday, way fahmayaan in dhagaxyaasha iyo sanamyada loo jeedo oon ciise oo caaqil ah loo jeedin lianna maa caaqil looma adeegsado. maa darabuuhu mathalkaa ma ayna kuu yeelin nebi maxamedow laka adiga ilaa jadalan dood mooyaane, bal iskaba dhaafee hum ayagu qowmu qom waye khasimuuna oo dood badan. in huwa ciise muuna ahaanin ilaa cabdun addoon mooyaane, addoonkaasoo ancamnaa aan u nicmaynay calayhi korkiisa. nicmadaasina waxay ahayd wixii dhintay inuu soo nooleeyo, inay wixii buka ama baras qaba inuu gacanta mariyo ilaahay ka caafiyo, kii indhaha qabay intuu indhaha gacanta ka mariyo inuu ilaahay indhihii u soo celiyo. waa addoon ilaahay u nicmeeyey. in huwa ciise muuna ahaanin ilaa cabdun addoon mooyaane, addoonkaasoo ancamnaa aan u nicmaynay calayhi korkiisa. oo wajacalnaahu waxaan u yeelnay mathalan tusaale iyo maahmaah libani israa'iila reer bani israa'iil. ciise waxaan uga dhignay tusaale, wajacalnaahu ciise waxaan uga yeelnay mathalan tusaale libani israa'iila reer bani israa'iil. walow nashaa'u haddii aan doono la jacalnaa waxaan yeeli lahayd minkum idinka bedelkiina malaa'ikatan malaa'igtaasoo yakhlufuuna khaliif ka noqdo bedel iyo ciwad idinka noqda fil ardi dhulka dhexdiisa. oo malaa'igtaasaa ilaahay dhulka keeni lahaa, idinkana waa la idin dhaafi lahaa, laakiin ilaahay wuxuu doonay in la idin imtixaano. wallahu aclam wa axkam.